بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. xigmad waxaa jirto cid haddii wax la weydiisto lagu celceliyo way dhibsadaan, cid kalena haddii wax la weydiisto oo lagu celceliyo wuu jeclaystaa. bini aadanka makhluuqa ilaahay abuuray haddaad wax weydiisato oo aad ku celceliso wuu dhibsanayaa. laakiin ilaahay subxaana wa tacaala haddii aad wax weydiisato wuu ku jeclaanayaa. ducada diinta islaamka waa qayb ka mid a tawxiidka. markaad ducaysanaysid waxay caddaynaysaa ilaahay inaad aqoonsatay kelinimadiisa, awooddiisa, ilaahay inuu wax walba hayo, ilaahay subxaana wa tacaala inuu yahay midka keliya la baryo wax la weydiisto. nabiga calai salatu salaam xadiis imaam tirmidi u wariyey wuxuu yidhi adducaa cibaada, ducadaaba cibaada ah. markii aad salaada ku jirto cibaadaad ku jirtaa, markaad ducaysanaysid iyadana cibaado waaye. waxaad marka ducada qofka muslimka waxay sii dheer tahay alla awood badana ah oo wax walba hayo ayaad xaggiisa u jeesatay. haddii oo adiga ilaahay subxaana wa tacaala cibaadadaasi ducada ku jira wax weydiisato, haddaad yaqiinsato ilaah wuu ku siinayaa. marka dadka tusaale oo bini aadanka fahmayaan u sheegaa, kadibna waxaan aadaa awoodda ilaahay subxaana wa tacaala saa u aragto. tusaale waxa waaye haddii aan soo koobo qofka bini aadanka ah ama insaanka guud ahaanba markuu dhakhtarka dawo u qoro wuxuu rumaysan yahay dawadaasi hadduu qaato inuu ku caafimaadayo. mararka qaarkooda dhakhtarka markuu dawo kuu qoro waxaa dhicayso inuu ku yidhaahdo dawadan marka labadan kuu qorayaa. xitaa waddanka maraykanka oo hadda aniga aan joogo waxaa aad loo isticmaalaa qofka mar labaad inuu fiil garayn karo. macnaheedu waxa waaye mar labaad inuu soo noqon karo farmashiyaha, haddana waa loo qorayaa. dhakhtarka wuxuu ogolaanaya intaasoo jara inuu qaadan karo, waa ku celcelin waaye. laakiin qofkii dawada markuu qaato wuxuu aaminsan yahay dawadaas inuu ku caafimaadayo. matalan madax xanuun tusaale ahaan uu qabaa, ama dawo Tylenol uu qaatay ama aspirin, hadduu qaato wuxuu aaminsan yahay inuu ku caafimaadayo. markaas waxaa arkaysaa qofkiioo fay noqday markuu qaatay kadib, sababto wuxuu aaminay inay dawo u tahay. ducada u nimaadno marka, ducadan waa sidaas oo kale waayo. udcu llah, nabigaa yidhi calai salatu wasalaam xadiis kale, ilaahay wax weydiista laakiin wa antum muuqinuuna bilijaaba, idinkoo markaasi rumaysan oo aaminsan ilaahay subxaana wa tacaala inuu aqbalayo. taasoo marka meesha lagu kala tegay. sayidna cumar wuxuu dhihi jiray aniga mas-uul kama ihi, waa hadal waaye, afar waaye. afar waxaa la yidhaahdaa hadal xigmad badan oo asxaabtay ku hadlaan. wuxuu yidhi ani ma ka murugoonayo maaragtay ijaabada ilaahay inuu jawaabayo, shaqadayda maaha, waa ballanqaad waaye. ilahay wuxuu ballanqaadana wuu oofinaya. laakiin ani waxaan ka walwalayaa in aan ducaysto, macnaha ducada inaan badiyo, inaan ka gaabiyo, taasaa weliwala igu haysa maahine in la aqbalayo maka walwalsa inuu dhexaysayo. marka qofka mu'minkaa bishaarayso, ducada waa la aqbalayaa, laakiin maxaa lagaa rabaa inaad rumaysato. culimmadu waxay dhaheen markaad ducaysanaysid saddex waa muhim inaad maskaxda ku hayso. kow, meesha aad joogto aad ku ducaysanaysid. laba, waktiga. saddex, xaaladda. marka meesha waa muhim, sida maka oo kale markaad ku ducaysanaysid oo aad joogto kacbada agteeda oo ah buqcada ilaahay meel uu abuuray meesha ugu fadliga badan
oo halka salaad aad tukato 100,000 oo salaad ay la mid tahay meeshaas markaad taagan tahay ama masaajidaha kamid markaad ku dhex jirto waa oo sida axaadiista ay tilmaantay buqca ilaahay abuuray waxaa ugu khayr badan masaajidaha haddana masaajidihii 3 masaajid ayaa gooni loo fadilay nin ayaa wuxuu u qasday inuu kacbada aado waa fiiri ducada iyo awooddeeda dhanka kacbada laakiin haddaadan aadi karin ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu ku leeya waidaa sa'alaka cibaadii cannii fa innii qariib addoonkeyga hadduu wax weydiisanayo anigoo kuu dhowaa meesha aragta joog laakiin meelihaa kala fadli badan ninkii wuxuu u qastay kacbada inuu aado agteedu ku tukado markaas kadib si toosu ilaahay subxaana wa tacala wax u weydiistay waxay ahayd 2 duhurnimo ahayd marku wax weydiisanayo maalin maalmaha ka mid ah ninkiisa wax ku soo dhacday gabar uu dhalay oo weynaatay oo shalal ku weynaatay shalal waxa waaye xubnahoo dhan gaariyaa lagu rixaa gaariya xubnahoo dhan ma shaqaynaya marka laga reebo indhaheeda iyo ama wejigeeda dheh waxaa maqlaysaa waxa way arkaysaa raashin waa la siin karaa laakiin gacmaheeda ma shaqaynayaan xubnaheeda dhan ma wada shaqaynaya qoorta wixii ka hooseeya oo dhan ma shaqaynayaan waa la xambaaraa waa la sixiyaa waa loo weyse qaadaa gabadhaasi aad u jeclaa aaba kastana ilmihiis waa jeclaya maalin wuxuu go-aan ku gaaray inuu xaramka soo aado abha meel la yiraahdo oo ka mid a sacuudigu ka soo tegey wuxuu soo aaday maka xaramka kacbada agteeda u istaagay gacmuhu u kor istaagay wuxuu dhahay saacadda waa fiiriyey 2 duhurnimo la ilaaho adaa dadka socodsiiya adaa makhluuqaadka abuura si toos wax u weydiista ilaaho gabadhayda waa imtixaaman tahay waana imtixaantay raaliyaan ka noqonnay waxaad awoodi kartaa ilaahu subxaana wa tacaala gabadhayda inay istaagto ay socoto oo danaheeda ay qabsato ilaahu maanta waxaan kugu imid aan ku weydiisanayaa haddeerta aan kula hadlayo anoo aaminsan inaad ii jawaabaysid ilaahow gabadhayda caafimaad buuxa iisii waa tukaday ilaahay subxaana wa tacaala ayaa wuxuu weydiistay in gabadhiisa ilaahay caafimaad buuxa uu siiyo safarkiiu ka laabtay magaaladii abhu ku laabtay markuu aaday albaabkakuu soo garaacay saacado kadib waayo ayaa wax mucjizaa dhacday wax weynaa dhacay albaabkii waxaa furtay gabadhiisa iyadoo saan dhehayso allahu akbar allahu akbar allahu akbar qubila waa la aqbalay ducaa'ii ducadeedii markaasaa gabadha u hagsiiyey sheekada marka aan soo gabagabeeye ilahi wuxuu leeya waidaa sa'alaka cibaadii cannii rasuulka lala hadlayo sababta asxaabta waxay yidhaahdeen mid ka mid ama qaar ka mid ah ilaahay subxaana wa tacaala xagguu noo jiraa waidaa sa'alaka cibaadii cannii haddii addoommada ii kaa weydiiyaan maxaa waaye meesha intee waaye intaan u jiro haddii ku weydiiyaan waidaa sa'alaka cibaadii cannii fa innii qariib u sheeg waaye waa u dhowah ilaahay subxaana wa tacaala waxay dhaheen dhowaan cilmi waaye culummadu way fasireen wuu og yahay ilaahay xaaladaada markaa ilahay wax weydiisanaysid waxba ha welwelin xataa kor u qaada ma ah inaa waxaa la weydiiyey ducadaada waa la aqbalee hadalna ma maqlin saanuu dhahay oo keliya alxamdulilah wuuba dhameeyey sababtoo ah ilaahay subxaana wa tacala niyadda wuxuu ka weydiistay wuxuu dhahay ilaah waxaa niyadda ku hayo oo aan rabo waad og tahay ilaahu isii hadda marka adiga waxaa lagaa rabaa keliya ku saabsan waxaa ducada markay ku saabsan tahay mawduuca waxaa lagaa rabaa oo keliya inaad ku celceliso haddii aad ogolaatay dhakhtarka markuu dawo ku siiyo oo dawadii weli jirkaaga ay ku shaqayn weyso haddana uu ku celinayo waa ogolaatay haddana mar labaad haddana mar saddexaad waa qaadanaysaa ilaahay subxaana wa tacaala
hadduu kaa soo daahiyo inuu kaa aqbalo ducadii ku celceli ducadii ilaahay uu kaa aqbalayaa qisooyinka ducada waa badan yihiin laakiin ducada laftageeda cibaada ah xadiis kalaa jiro adducaa mukhu lcibaada inkastoo xadiisku uu daciif yahay laakiin macnihiisa waa sax ducada waa udub dhexaadka cibaadada adi yaa allah markaad dhehaysid bini aadam dhan ayaad ka go'day oo waxaa wax weydiisatay ilaahay keliya aan ducada badinno ilaahay aan wax weydiisanno oo keliya waxaan rabna isaga aan weydiisanno asxaabta waxaa la sheegaa ilaahay inay wax ula weydiistaan intaas keliya maahee waxay weydiisan jireen xitaa waxaa la yidhi cusbada ka go'da raashinka ilaahay weydiisan jireen ilaahay subxaana wa tacaala hana waafajiyo ducada ilaahay subxaana wa tacaala hanaga aqbalo ducadeenna ilaahay subxaana wa tacaala hana wada xifdiyo annaga caruurteenna guryaheenna wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu